Algeria Abdelmajid Tebboune ayaa u sheegay wargeyska Faransiiska ee El Opinion inuu diyaar u yahay xiriir diblomaasiyadeed oo Algeria ay la yeelato Israa'iil isla maalinta lagu dhawaaqo dhismaha dawladda Falastiin oo madax bannaan balse iyadoo aan la dhisin dawladda Falastiin waxa uu sheegay inaysan wax xiriir la samayn doonin Israa'iil. Netanyahu waxa uu tagay isagoo aan waxba u sheegin wakiilada qoysaskii maxaabiista ku haray gacanta Hamas oo ahayd inay u raacaan Washington si ay wala qayb galaan kulamada Trump uu la yeelanayo ee arrimaha maxaabiista balse markii uu Washington tagay Netanyahu ayaa ogaaday wakiiladii qoysaska maxaabiista ee uu ka soo tagay inay iyaguna soo gaareen Washington kuwaas oo ka soo daba qaatay diyaarad kale oo gaar ah sida ay ku warantay Al Jazeera oo xiganaysa warbaahinta Israa'iil. qoysaska maxaabiista Israa'iil ayaa markasta u muuqda kuwa muujinaya inaysan ku kalsoonayn Netanyahu oo ay marar badan ku eedeeyeen sabab la xiriira kursigiisa iyo arrimihiisa gaarka ah ee siyaasadda inuusan u luminayn nolosha maxaabiista. waxay ka doonayeen Trump ayaana ah inuu cadaaladeeyo wajiga kale ee heshiiska lagu sii deynayo maxaabiista. qaar ka mid ah warbaahinta Israa'iil ayaa ku waramaya Trump waxa uu sareeyay oo doonayay inuu fuliyo inay tahay sidii ay ku dhici lahayd Sacuudiga iyo Israa'iil oo heshiis xiriir diblomaasiyadeed dhexmara balse boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay ku xirtay si ay taas u dhacdo inay Israa'iil aqoonsato dawlad Falastiin oo madax bannaan. qaar ka mid ah wargeysyada iyo falanqeeyayaasha Israa'iil ayaa dhankooda sare u qaaday inay u soo jeedinayaan Netanyahu inuu ka fogaado muddada uu joogo Washington wax la xiriira mustaqbalka Falastiin inuu ka hadlo haddii ay dhacdo arrintaas inay dhici karto ballanqaadyo fulintoodu ay hadhow dhabarjab ku noqon karto xiriirka labada dhinac taas oo Netanyahu inta uusan ka tagin Tel Aviv waxa uu joojiyay wakiilada wadaxaajoodka xabad joojinta wajiga labaad uga qaybgeli lahaa Israa'iil xilli kaliya 3 toddobaad ay ka harsan tahay waqtiga uu dhamaanayo heshiiska wajiga koobaad taas oo u muuqato inuu qaadanayo Netanyahu kaar cadaadisa oo uga hortagayo wax la xiriira mustaqbalka Falastiin. bulshada Soomaaliyeed iyo ganacsatada intooda badan ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin dabkii xalay ka kacay suuqa Gobonimo qaybtiisa waqooyi ee idaacadda magaalada Hargeysa. muuqaalo naxtin leh ayaa la arkayay kuwaas oo muujinaya dab xoogan oo ka kacay qaybaha kala duwan ee suuqaasi uu ka kooban yahay sida la sheegana waxa ay waxyeello ka soo gaartay ganacsato fara badan oo suuqaasi hanti ku lahaa inkastoo wax faahfaahin aysan ka soo bixin hantidii ku baaba'day dabkii ka kacay suuqaasi haddana inta badan waxa la sheegayaa khasaaruhu inuusan ahayn mid yar.